geego taariikhdii ee 24 bille June 2021 way baabsida caadadaha ay qabsoomay kulanka Gollaha Wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu shir gudoomiyey Madaxweyne Cabdicasiis Xasan Madlaftagareen kaasoo runtii ajandooyin eedeed muhiim ah ee linkadoodi ka hormaro wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa way baab ku dahoway xaaladooyin ka dambeeyay isbuucii la dhaafi ee amniga deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo soo hayt runtii xaalad eedeed degan oo runtii isbuucii la dhaafi nimankii nabad inoo diidka haayay oo markastaba inteegan iniyo dhibaateeyaan bulshada ka dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo meel raayis hagardaamidiyo walbadan runtii ciidamada amniga oo iska jiraan hadii hadal ay booliis daraawiish military iyo iskaaladayaan runtii in walbadan lagu qabadi gaar ahaan way baab la ka xusay degmada Diinsoor ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dadaalo eedeed ambeleerin iyo suubiyeen kaasoo meel raayis isbuucii la dhaafi runtii iyo iska hormaad iyo dhaxmari nimankii shabaabka iyo guulo eedeed weyn runtii ha ku hooyeen runtii iyo meel raayis dhammaan ciidamada shalgidisan amaalinka jeedii Gollaha Wasiirada iyo bogaadin runtii howlo qaran oo ay hayaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan way baaba bogaadin iyo amaalinka jeedii ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ka howlgala degmada Diinsoor shaqada culus iyo hayaan runtii oo meel raayis dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ballan qaadi baahiyaha jar runtii oo ay u baahan ciidankaas daraawiishta inay sidoo qaraxsiga badan runtii jawaab lagu biidi doona waan baahidii la daboolo doon way baab warbixin lagu dhuunsiday wasiirka Arimaha Gudaha taasoo ka saabsan aytii safarkii Madaxweyne Cabdicasiis iyo qaar ku tirsan Gollaha Wasiirada Koonfur Galbeed iyo ka seedan degmada Weejid kaasoo haytii runtii caleema saarka Golaha Deegaanka degmada Weejid runtii oo runtii meel raayis wasiirka wasiirado warbixin ku sii howlo culus iyo meelaha ku qabadeen runtii horumarada la talaabsaday degmada Weejid oo runtii meel raayis golo deegaan ee runtii iyo weelati oo runtii dhammaan shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya arin horumaran ee runtii wasiirka way xusay runtii baahiyaha madaas teegan oo baahan golo degmada Weejid iyo baahan runtii oo la wadaagay Gollaha Wasiirada runtii wasaarad kastan runtii Madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen oo kala dardaarmi kaalintii iyo la runtii inay degmada Weejid iyo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya inay wasaarado runtii ku jeeysadaan haan meel raayis hadda shaqooyinka culus iyo ka hayaan runtii degmada Weejid oo golo deegaan iyo weelatana aniyo si lama jibaaran shaqadii ka hayaan runtii wasaarado kalena meel raayis aniyo door soo qaadada runtii way kala warbixin lagu dhuunsaday wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo sinu ku dahoobi cudur maalmoon dambe ku jari gobolka Bakool kaasoo hay runtii dhiniga xoolo runtii wasiirka meel raayis sheegay inay qiimeen la ka hay runtii oo baaritaan dheer u dareerta cudurkana meel raayis ilaa hadda rasmiyan wala u saayay runtii linhayna laakiin khubaro dhiniga dhaqaatiirta ee oo ka taqasus dhiniga xanaanada xoolo runtii iyo arintaas garanta ka hayaan waqti dhowna la rajeeyo wala uu saayay rasmiyan cudurkaas in la ogaado wayba wasiirka ku dahoway kaalinta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo arintaas ku eedan runtii way kala warbixin lagu dhuunsaday walqabadka wasaaradda ka saabsan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha wasiirka oo uu ku dahoway bilooyinka ka dambeeyay wala iyo ka talaabsatay wasaaradda hoo hadal lahaayeen dhiniga korontada dhiniga biyo runtii wasiirka way baaba sheegay inay dhowr ceelal runtii oo tobaneeye lagu qodi degmada Baydhaba waqti dhowna la rajeeyo inay la xariig jar runtii saasaato deegaanada kale Koonfur Galbeed Soomaaliya inay uusa ceelal fara badan wasaaradda iyo qorshayti dhawaanna lagu fuliyo doona way kala wasiirka sheegay inay dhawaan la bandhiga doono sharciga korontada iyo sharciga biyo oo meel raayis wasaaradda isbuuciyada dareer iyo Gollaha Wasiirada han bandhiga doonta runtii wasiirka way kala sheegay inay arrimo meel raayis biyaradii deegaanada ku tirsan Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Bakool maalmoon dambe la ku sheegayo inay wasaaradda iyo ka guudi jirta runtii walno sidoo qadaqsi habadiyo ku qabado doonta
qodobkan ka dambeeyay oo warbixin guud leen ku dhuunsaday wasiirka wasaaradda maareynta iyo musiibooyinka oo runtii safar u sakaseeday degmada Xudur kaasoo ka saabsanay runtii qiimeyn baahiyaha qayladhaanka ku weeraayay degmada Xudur runtii oo ka eedinayti ee safarkaasoo runtii hay'adaha shalgidisan uu sakawahliyo wasiirka ayaa warbixin dheer ku sii galo wasiirada taasoo meel raay saad qiimeyntaas madii la soo biyo ku dibna hay-adoogiiba ballanqaadi fara badan iyo suubiyeen bulshada Soomaaliyeed yani meel raay shalgidisan runtii howl eediyad ambeleeran oo ka saabsan qayladhaanta ku weertay degmada Xudur iyo xamar runtii la kawada runtii ilaa iyo 42,000 oo tan oo raashin eegna hadda dawladda koonfur galbeed Soomaaliya galanta ka hayta raashinkaasoo waqti dhow la ku daabulo doono xamar waqti xaadirkan una isla geedgaduna runtii falaydkan ka horeeyay oo raashinkaas runtii yani la rajeeyahay saacadaha nifoole inuu sadeere degmada Xudur ee gobolka Bakool way kala runtii lagu dahoway baahiyaha ku jira degmada Xudur oo runtii madaxweyne Cabdicasiis uu sheegay hamiiga inuu ka mashquulsiiyay guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan qayladhaanka hadda ku weerahay degmada Xudur inay sidaan dhaqsiyaha badan runtii wala ku qabado doona dareema kortaan nimanka nabadiin nolol diidka al-shabaab go'doonka bileerin iyo ka hayaan degmada Xudur iyo deegaanada koonfur galbeed haaban ka sii darnaato gobolka Bakool inay sidaan dhaqsiyaha badan qorshe oo yani nimankaas la kala dagaalama runtii walna leen qabado deegaanada ka hareeraysan degmada Xudur waqti dhow meel raay wasaaradda amniga lagu sugahay runtii oo ka hadladaan ciidamada saaxiibadoona inay amisomna insha Allah iyo geesiyalka ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya waqti dhow lagu qabado doona taas oo qodob yalin ku dahobay galo wasiirada dowladda